abarasaabka gobolka Xaysimo Cabdirashiid Maxamed Axmed Xiir oo aanu kula kulannay cisbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood ayaa ka warbixiyay weerar uu sheegay inay xalay ku soo qaadeen ciidamada Puntland xilli uu socday degmada Taleex ee gobolka Xaysimo wuxuuna sheegay in safarkaasi ay ku wehelinayeen maayarkii degmada Taleex iyo sidoo kale sarkaalka ciidamada Soomaaliland ee gobolkaasi Xaysimo wuxuuna cadeeyay barasaabku inuu geeriyooday taliyihii ciidamada Soomaaliland ee gobolka Xaysimo sidoo kalena uu dhaawac soo gaadhay maayarkii degmada Taleex xalay shil baa dhacay shilka dhacayna wuxuu ka dhacay gobolka Sool iyo gobolka Xaysimo dhexdooda aniga iyo maayarkii degmada Taleex Cornel Salman Abdi Jaamac gaashaana dhexe ayaa waxa jidkooyo noo galay maleeshiyaadka Puntland ee meelaha lagu soo ururiyay halkaas oo ay dhibaato u geysteen gaarigii iga horeeyay ay wateen maayarka iyo taliyihii guutada Salman Abdi Jaamac halka waxa ku dhintay Salman Abdi Jaamac Allah yarxamo Ilaahay ha u naxariisto naxariista jannada ka waraabiyo wuxuu ku dhintay degeeri xaq isagoo dhulkiisa maraya oo dhulkiisa ka shaqeynaya ayaa maleeshiyaadkaas si xaq darra ay jidkooyo u dhigteen u dileen waxa kale oo dhaawaca culus ah oo hadda gaar saaray maayarkii degmada Taleex Salman Axmed Xaaji Diiriye isagana waxa uu leenahay Ilaahay uga dhigo nabarra xaq darro caafimaadna Ilaahay ha siiyo waxaan leeyahay maamulka Puntland ee maleeshiyaadka ku soo ururaya deegaanada Soomaaliland waxaan leeyahay warskaga waantooba dhulkan iyo dadkan ay xaq ku lahayn maalin walba qof dhulkiisa maraya jidka rabtaan inaad u gashaan xumaan iyo dharbaaxo culus baa ka damayn doonta wixii ka dhacay ninka ka mas'uul noqon doona oo dhacay xalay koodiga barkii malaha wallahi gaarigii uu burburay gaarigii maayarkii watiin uu burburay korneelkuna waa ka ku dhintay maayarkuna waa kan hadda isagii aynu gaariga saaray oo xaalkiisa aad aragtaan annagana gaarigoon baa dhibaato naga gaadhay laakiin dhib kale naga gaadhay ma jirto no waxba kama jiraan jidkooyo noo dhigteen dariiqii caadiga ah ayaan mari jiray annagoo marayno gobolka iyagii weli aan ka dhammaan Xaysimo ayay jidkooyada noo dhigteen halkaasay ku dileen korneelka iyo maayarka Maxamuud Aadan Askar Maxamuud Guray Som News TV Laascaanood